waxaan ahay afayeenka macawisley dhammaan waxaan inii sheegayaa dagaal qabiil oo beesha cayr ay maanta diyaar u tahay uma jiraan. Raxmaan raxiim, salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam. Amaa bacdu, ilaahay baa mahad u sugan tahay. waxaana wacdiyey sheekheennii baana wacdiyey, wacdigiisa ilaahay ha nagu anfaco. aniga waxaan ahay afayeenka macawisleyda jiidda cayr, ninkaas baan ahay. waxaan ku noolahay deegaanka Bargujeed, dadkii waddankan gobonnimadii guushii maanta waxa weeyaan shabaab sidii looga xoreeyay halkan baan joognay. maanta waxaa noo farxada oo noo bishaaraa inaan waxa weeyaan madaxda dawladda dhexe ka socota oo generaalku ka mid yahay, oo waxa weeyaan haddana la ku diidin taliyaheennii taliye maxamed dhegaweyne ka mid yihiin. saraakiisha maanta taagan sooma koobi karo. waxaan leeyahay dhammaantiin codkii shacabka deegaanka Bargujeedeed iyo codkii macawisleyda beesha cayr dhammaantiin aan ku salaamaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. bacdi salaam, waxaan leeyahay saraakiisha maanta noo timid sidaad noogu timideen mahad wahaynii gaarto. ciidanka macawisley oo maanta garabka isu haya sidaad u soo faysheen mahad wahaynii gaarto. ciidankii ururkii horay noola joogay oo difaaca noo ahay oon garabka isku haynay oon wax badan maaragta waddankan aan cadowga iskala xoraynaynay. nimankaasu hedde waxaan u malaynayaa mahadda ay maanta leeyihiin oon u mahad celinaynaahu nin maanta noo yimid ka badan iyo ka badan iyo ka badan ay naga mudan yihiin. waayo waxa weeyaan gurigoodii iyo xaafadahoodii wax goor ugu dambayda ma yaqaaniin. 3 sano ay halkaan nala joogeen sidii shabaab looga xoreeyey. difaacay xoreynayeen, difaaca koobaad ay ahaayeen. cadowgay maalin walba nala baadigoobayeen. anigu waxaan ahay afayeenka macawisley dhammaan waxaan inii sheegayaa dagaal qabiil oo beesha cayr ay maanta diyaar u tahay uma jiraan. qabiilaadka aan dariska nahay sida beesha duduble, sida beesha mursade, sida beesha xawaadle, wax dagaal qabiilah oo annaga nagu jiraahu ma ay jiraan. war soo sax maaha. waxaa nagu jiro naga go'an oo annaga waa qawaarista dagaalkeedii, wax kale naguma jiraan. qawaarista dagaalkeedii baa naga go'an. ciidankaanu ayadoo u feeshan yahay garabkay isugu hayaan. kuwa maqan waxay u maqan yihiin waa difaac, kuwa joogaa waxay ku joogaan waa difaac. annagu meel kasta oon joogno waxa aan isku dhaarsannay waxa weeye qaranka dawladda Soomaaliya inaan garab istaagnaano, wax kale naguma jiraan. ninkii qabiila ee dagaal ku soo qaada beesha cayr ee qabiilnimo ugu soo qaadana dawladda Soomaaliya la xisaabtame. waxaan maqalnay tashkiiru qiyaas wax la yiraahdo in nimankan haddeer maarta waxa weeyaan dariska nahay qawaaristu ku tilmaamayso ay leedahay cayra waxay samaynayaan dalkiinii, waxay rabaan inay macawisleeyahaan inta u soo aruurshaan xoog ay dalkiina ku dhacaan, dadkiina ku laayaan. saas wax oo tashkiiru qiyaas la yiraahay maarta waxa weeyaan ay abuurayaan oon annagu ognahay. annagu maarta waxa weeye dadkan waa walaalahanne, dagaal uma qabno. dalkanagan waxaan rabnaa cadowga inaan ka xorayno. qabiilka deegaamada ay cadowgu joogo dhammaan u soconnaa. wixii naga cararaahu waa qawaarista, wixiina sugaahu waa shacabkii dawladda. saraakiisha noo timiday waa mahadsantihiin. annagu maarta waxa weeyaan inta macawisleyda maanta garabka is hayday waa mahadsantihiin.